nabadda ayaa ah isha ugu muhiimsan ee aadmigu u baahan yahay taasi oo aan la'aanteed noloshu micno sameynaynin sida oo kale nabadda ayaa saldhig u ah dhammaan ilaha looga cabir qaato heerarka ay marto xadaaradda iyo horumarka bulsho lagu tilmaamsado haddaba madax dhaqameed iyo odayaal ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed oo culus u diray labada beelood ee walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanka Fadhigaab ee degmada Ceel Afweyn madax dhaqameedkan iyo sidoo kale odayaashani ayaa ugu baaqay in labada dhinac dagaalka joojiyaan nabadana qaataan wixii dhacay way dhaceen dib uun bay ahayd faa'iido ma lahayn waxa faa'iidada maanta loo jeedaa tahay inaad joojisaan waxa dagaalka iyo dhibta inaad joojisaan oo dantiinu ku jirto danta dalkuna ku jirto yaa faa'iidada maanta loo jeedaa tahay intaanu idin farayno ama idinka codsanaynaana waxa weeye olaadaasi idinkana naf idiin ma leh annagana naf nooma leh dalkana naf uma leh faraha kala baxo colaadaa joojiye iyo shacabba la isla gartay ee meel la dhigay in la daba galo oo ciddii dhibtaa bilowday wixii meel la dhigay ciddii bilowday jisaa'igeedii la mariyo ducada maanta aynu isugu wada meel la duceeyay ilaahay haynaga aqbalo waxaanu jamaca iyagoo dhan baaq u diraynaa walaaladayada shaydaanku ka sayid caleeyay ee qafladu haysato ee seedig iyo abtiga miidhan isu ah ee kala roonaan waayay kuwaasaanu baaq u diraynaa waanu leenahay waar dadkii waa idinku daalay dawladdiina waa idinku daashay waa laydinla yaaban yahay waar ilaahay ka yaaba oo waar qolay u sabir oo dulqaado oo qolada kale ka sabir haddii qolaba qolo tidhaa adigu ka burso waxba kala burmaysana aakhiradiinina waa sheegteen iftiinkiinina waa sheegteen dadkiinina waa kala dhimateen war waxa uu leenahay walaalayaal ilaahay ka yaaba war dawladdu ma waxay kari waday qolo walba 10 oday oo salaadiinta iyo cuqaasha intay ka qaado dooni saarto inay saacaddiin geyso oo biyihiina u dhigto raashinkana u dhigto ma intaas ay karayn dhibaatada meesha ku jirta mid cid walba saameynaysa weeye haddii aanay qaboobin waxaanu leenahay daaya ragiina daaya waxaa ka faa'iidaan colaada waxa weeye oday iyo islaan goblan ah naag hingaf sida sabyaan yaryar oo aabahood la dilo agoomowda urad iyo caana la'aan baa ka faa'iidaanay magac kale oo laga helaa ma jirto baaqaa nabadgelyo cid walba waa la qabaa go'aan baa la gaaray waxa ka dambeeyay dhaaro badan dhaarana way ka horeeyeen waa la jabiyaa maalin walba dhaaraha waxaan leeyahay war miyaynu kari la'aan cidda dhaarta jabisa dhinac kastaba ha ahaatee in aynu khasaaraha maalintaa dhacan labada dhinacba ku qaadno oo gacan bira kaga jaro miyaynu kari weyn ilaahay waxaan ka baryayaa isaaqu barigii hore karaam u lahaa in karaamada ilaahay idin soo celiyo ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda isaysatay in ilaahay si khayr loo kala furfuro ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda isaysatay in ilaahay si khayr loo nasr ugu soo rogo ilaahay waxaan ka baryayaa madal khayr qaama suubalahay in ilaahay noo keeno isku soo wada duuba colaadani labada beelood ayaa noqonaynin tii ugu horeysay balse muddooyinkii ugu dambeeyay soo noqnoqotay iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Somaliland ay ka galeen waan iyo heshiisiin labadani dhinac ah fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco